in ka badan 20 gabdhood oo Soomaali ah ayuu qaatiyay cudurka dilaaga ah HIV/AIDS guud ahaan qaaradda Afrika ku dhawaad 150 gabdhood ayuu qaatiyay cudurkan waa kuma magaciisa dhabta ah maxay tahay siraha uu adeegsado si uu ugu talaalo gabdhaha cudurkan dilaaga ah yaa ka caawiya arrintan muxuu ahaan jiray halkeesa ka yimid ninkan yaa soo diray sidee ayuu cudurkani ugu dhacay haddaba inta aan u galin warbixintan muhiimka ah waan aaminsanahay haddii aad dhamaystirantid oo aad wada daawatid in ay faa'iido u noqon doonto badbaadinta walaasha ama gabar kale oo muslimad oo walaasha oo kale ah inta aan u galin faahfaahinteeda haddii ay tahay booqashadaada ugu horreeyay channelkeena fadlan subscribe saar si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino Josh Bob oo ah muwaadin u dhashay wadanka Mareykanka waxa uu qabaa cudurka dilaaga HIV/AIDS haddaba wargeysyada ugu waaweyn caalamka ayaa waxa ay qorayaan Josh Bob oo ku dhaqaaqay arrin la yaab leh isagoo adeegsanaya asxaab ay isku bah yihiin kuwaas oo la qaba cudurka HIV/AIDS-ka waxayna Josh Bob iyo asxaabtiisu si wada jir ah u go'aansadeen inay gabi ahaanba qaaradda Afrika ku talaalaan cudurkan dilaaga HIV/AIDS Josh Bob oo adeegsanaya asxaabtiisa ayaa waxa ay u soo safreen wadamo badan oo Afrika ah sida Nigeria, Kenya iyo qaybo kamid ah Soomaaliya haddaba Josh Bob maxay tahay sababaha uu maxay tahay cadaawadan qaaska uu qaba gabdhaha Afrikaanta ah sidoo kale maxay tahay siraha qaaska uu adeegsado gabdhaha muslimiinta ah iyo si guud qaaradda Afrika idilba ninkan ayaa waxa uu leeyahay siro badan kuwaas uu gabdhaha u maleegay si uu xindaabkiisa u soo geliyo kadibna ugu talaalo cudurkan haddaba daawadayaal Josh Bob sidee ayuu cudurkan bilowgiisa ugu talaalmay Josh Bob waxa uu ahaa dadka taga meelaha baararka ah laga tunto kuwaas oo ay joogaan gabdhaha jirkooda ka ganacsada subxaanallah Josh Bob oo halkaas tagi jiray ayaa ugu dambeyn gabar Afrikaan ah oo la sheegay inay ahayd muhaajirad wadanka Mareykanka soo gashay waxa ay qaadsiisay cudurka dilaaga HIV/AIDS-ka gabadhan oo bilowgeeda tahriib ku gashay wadanka Mareykanka ayaa waxa ay qaadsiisay cudurkan dilaaga ah haddaba Josh Bob ayaa waxa lagu arkay cudurkan waana la baaray waxaana si dhab ah loogu xaqiiqsaday inuu cudurkan qabo Josh Bob ayaa markii uu cudurkan ku dhacay waxa uu go'aansaday inuu gabi ahaanba qaaradda Afrika ka tirtiri doono dhulka subxaanallah haddaba cadaawadan Josh Bob ayaa waxay noqotay mid sare ah kadib markii uu soo safray qaaradda Afrika isagoo doonaya inuu gabdhaha Afrikaanta ah ku talaalo cudurka si ay iyana ugu sii faafiyaan wadamadooda maxaa yeelay haddii hal gabar uu ku talaalo waxa laga yaabaa inay gabadhaasi iyaduna sabab u noqoto inay wiil kale ku talaasho wiilkaasi waxa laga yaabaa inuu isna sii faafiyo cudurkan ayaana inta ugu badan ama 70% waxa uu ku faafaa galmada haddaba daawadayaal Josh Bob maxay tahay siraha ugu badan uu adeegsado qaasatan gabdhaha muslimiinta ah Josh Bob ayaa waxa la sheegay inuu bartay diinta Islaamka qaybo kamid ah si uu gabdhaha muslimiinta ugu dabo waxa uu bartay baa la yiri salaada ashahaatinka iyo waxyaalaha la midka ah oo idil kuwaas oo fududeyn kara inuu si fudud ku soo jiito gabdhaha Soomaalida ah waxaana arrintan qatarta badan Josh Bob uu marayaa sidii uu gabdhaha Afrikaanta ah kaga arsalahay maadaama uu aaminsan yahay in gabar Afrikaan ah iyo cudurkan ku talaashay Josh Bob ayaa waxa uu sameeynaya baa la yiri waxa uu maanaya wadamada muslimiinta ah sida Nigeria, Soomaaliya, Kenya haddaba waa uu ku sugan yahay balse asaga iyo asxaabtiisa ayaa waxay adeegsadaan siraha noocan ah waxa ayna sameynayaan inay gabdhaha Islaamka inta u imaadaan dhahan waxaan ahaa wiil muslima Ilaahay dartii ayaan wadankay uga soo tagay waa dhul gaalo halkan waxaan u imid inaan helo gabar muslimad ah oo dhowrsan kadib markii ay guursadaan oo ay gabadha la aqal galaan oo ay muddo qabaan ayaa waxa ay ku talaalayaan cudurkii maadaama gabadhii haddii mar xilo u noqoto ay labadan qof dhaxmari karto xiriir galma ah kaas sababi kara inay gabadhaani si fudud cudurka ku qaado haddaba arrinta halista badan daawadayaal waxaan idin la wadaagaynaa in gabdhaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyo guud ahaan gabdhaha Afrika ay ka faa'iideystaan fariintan waxaana ka codsanaynaa adigoon annaga nagu xushmeeyeen oo ilaalinayo caafimaadka walaashaada iyo sidoo kale walaalaha kale ee muslimiinta inaad warbixintan share gareydo digniinahan aad la wadaagto gabdhaha Soomaalida ah iyo qaasatan gabdhaha Afrikaanta iyo sidoo kale gabdhaha muslimiinta ay walaalaha ah haddaba Josh Bob hadda waxa uu ku sugan yahay baa la yiri oo soo gaaray bariga Afrika qaasatan wadanka Kenya sidaan wada ogsoonahay Kenya waxa ku nool Soomaali aad iyo aad u fara badan waxaan ogsoonahay dadka Soomaaliyeed ee tagay badankood inay ku tageen qaxooti ay saeen dad waxaysto badana waxa lagu teeyaa Nairobi ama Kenya meelaha ugu badan ee Soomaalida ugu fakhrisan ay joogto maxaa yeelay dadka inta badan tagay waxay aad u hamiyaan inay wadanka ka baxaan oo ay tagaan wadamada horumaray sida Mareykanka iyo wadamadan Yurub ee kale haddaba Josh Bob iyo xirtiisa ayaa waxa u sahlaanayso gabdhahaasi inay si fudud ku qaasiyaan cudurkan maxaa yeelay Josh Bob waxa uu adeegsadaa gabdhaha inuu dhaho waan ku kaxayn doonaa halkan ayaana kaawadi doonaa waxaana ku geey doonaa wadamadii ay ka imaadeen qaasatan wadanka Mareykanka iyo sidoo kale asxaab kale ka soo aroorsaday wadamada Yurub haddaba arrintan ayaa waxa laga yaabaa in gabdhaha ay qalbigooda jilciso dabadeedna ay ka ogolaadaan inay guur la wadaagaan guurkan waxa la sheegay inay ku dabayaan gabdhaha ma ahan guur ay ka doonayaan inay mustaqbalka abuurtaan waa guur ay ku
dabayaan gabdhaha waxaana arrintan ay noqonaysaa mid si weyn baraha bulshada caalamka looga faafiyo wargeys kastoo caalamku wuxuu qorayaa in gabdhihii Afrikaanta ah la baabi'iyay ilaa ay hadda kiisaska la diiwaan geliyay ayaa waxay kor u dhaafayaan 200 oo kiis waxaana la aaminsan yahay ku dhawaad 20 iyo ka badan oo gabdho Soomaali ah ay ku kala sugan wadamada Nigeria, Kenya, Uganda in la qaadsiyo cudurkan dilaaga ah haddaba daawadayaal fariintan digniinta ah waxaan idin kula wadaagaynaa in aad barnaamijkan faafisaan oo aan laga gamban oo dadka Soomaaliyeed si wada jir arrintan uga kacaan oo bar kasta oo baraha bulshada ah warbixintan la geeyo la share gareeyo Facebookada aad geydaan Messengerka aad isugu dirtaan meel walba aad soo dhigtaan maxaa yeelay gabdhaha Soomaalida ah waa gabdhaheeni waa hooyadeen waa walaalaheen waa inaan u istaagnaa sidii aan uga ilaalin lahayn waxyeeladan halista badan ee u imaan karta sidaan wada ogsoonahay bariyihii ugu dambeeyay waxa soo badanayay nimanka ajaanibta ah ee guursanaya gabdhaha Soomaaliyeed walow dadku siyaalo kale u falaqeynayeen oo dhahayeen nimanka Soomaaliyeed ayaa xumaaday hase yeeshee halistan ayaa timid gabdhow ka digtoonaada maxaa yeelay waxa la idin qaasinayaa cudur halis ah ee dilaa ah inta aad wiil Soomaaliyeed ee walaalka ah ee kugu dhiiga ee sharfan ee muslim ah aad ka cararaysid ha ogelin cadow cadaan ah kaasoo argoosi u yimaaday wadankaaga haddaba daawadayaal arrintan ayaa ah midda ugu halista badan ee Joseph Bob oo ku dhaqaaqay iyo xirtiisa sidoo kale daawadayaal waxaan idinla wadaagaynaa mashruucyada uu adeegsado Joseph Bob iyo xirtiisu waxa kamid ah inay dhahaan mashruucyo caafimaad ayaa wadnaa waxaana si sahlan ku fududaan karto in mashruucyadaas caafimaad ay ku faafiyaan cudurkooda ma ahan aidisku inuu ku faafo galmo laakiin waxa uu ku faafaa siyaabo kala duwan sidaan wada ogsoonahay wadankeena waxa iska soo gala dhaqaatiir cid kontrolsho ma lahan dadku haddii inta miyo kugu imaadaan ama magaalooyinka imaadaan ay dhahaan dad cadaan waa idin dureena qofku wuxuu aaminsan yahay haddii qof cadaan ah cirbad ku mido inuu caafimaadayo hase yeeshee daawada ka digtoonaaw in aad qof aadan ku kalsoonayn ama dad cadaan ah oo aadan aaminsanin cidda ka dambaysa inay tahay cid la hubo ha ku fududaan inaad ilmahaaga ama adigu baad xaalad caafimaad ugu tagto si ay ku diraan sidoo kale waxa kamid ah waxyaalaha ay adeegsadaan caawinta dadka tabaalaysan in dadka tabaalaysan ay caawinayna waxa ogsoonahay wax walba ayaa loogu dari karaa waxyaalaha la siinayo waxa kamid ah sidoo kale inay adeegsadaan wadamada ay ku soo galaan dalxiis oo kale haddii aad aragto dad dalxiisayaal oo cadaan ah hala saaxiibin waxba hala share gareyn daawadayaal qorshayaashan ay adeegsadaan si ay ugu maleegaan oo ay u hirgeliyaan in hamigoodii ah inay faafiyaan cudurkan oo ugu hirgalo sidoo kale daawadayaal dawladda Mareykanka ayaa shakhsiyaadka cudurrada noocan oo kale ee faafa qaba waxa ay siisaa lacag gunno ah oo gooni ah waxa ayna tiraahdaa ama waa lagu karantiilayaa meel ayaa lagu xirayaa aysan ahayn wadankeena isaga bax Joseph Bob ayaa waxa uu isaga soo baxay wadanka Mareykanka hadda waxa uu wareegaya qaaradda Afrika hadba meeshii lagu fahmo maahana meesha kale ay tagaan ninkan aa wajigiisa u jeeda waa Joseph Bob isagu waa caan wargeysa caalamka dhan ayaa hayaan balse waxa jiro shakhsiyaad la mid ah isaga oo sida aan oo kale cudurkii u faafinaya haddaba daawadayaal dawladda Mareykanka ayaa waxay ku amartay Joseph Bob inuu wadanka isaga baxo waxaana la sheegay in mushaar loo qorayo oo bil walba mushaar la siinayo haddii uu wadanka ku soo laabto uu yiraahdo wadankan joogayana waxa la yiri waa lagu karantiilayaa meel xabsi ayaana galaysaa haddaba Joseph Bob waxa ku dhalatay inuu wadankii isaga soo baxo oo dibadda ay ku faafiyaan cudurka sidaan wada ogsoonahay dhaqaatiirtu waxa ay sheegeen in cudurkan HIV/AIDS-ka haddii qofku uu galmo uu ka yaraanayo isaga haddaba waxay rabaan in cudurkoodii ay yareeyaan oo ay markaa waqti badan sii noolaadaan maxaa yeelay markasta qofku galmo sameeyo waxa ka yaraanayo cudurkan wuxuu ka kooban yahay waa virus dabadeedna cudur ay isku sii bedelaan marka qofka haddii uu gaaro xaaladda HIV ka soo gudbo AIDS-ki ku dhaco waxa sahlanaanaysa qofkaas in jirkiisa difaaciisa lumo haddaba si ay difaaca jirkooda u ilaaliyaan waxa ay sameeyaan galmo fara badan taas oo badbaadin karta ama u suurtagelin karta inay waqti kale dib u sii noolaadaan waxa ayna middan kaga faa'iideysanayaan gabdhaha Afrikaanta ah ee masaakiinta kuwaas oo aan wax hanti haysan qaasatan gabdhaha Soomaaliyeed inkastoo yihiin gabdho shariifaada oo muslimiina oo dhowrsan oo aanan ka cabsi qabin in ay zina ama wax la mid ah ku dhaaqayaan haddana waxay tahay siyaabaha adeegsanayaan inay tahay inay muslimnimo u soo jilayaan inay isaga dhigayaan nin muslim ah kaasoo doonaya inuu guursado taas ayaana waxay sahlaysaa in gabdhihii u beer jilcaan maxaa yeelay haddii qof inta ku yimaado oo ku yiraahdo gaal baan ahaa waan ka soo toobad keenay waxaan ka soo caaray dhulkayga waan ka soo haajiray hadda waxaan doonayaa gabar muslimad ah igu caawi walaal diinta islaamka inaan ku sii dhex jiro oo fududay oo waxaan doonayaa inaan ku xalaashado ma laga yaabo gabadhu inay kor istaagto maxaa yeelay gabdhuhu Soomaalidu way beer jilcan yihiin haddaba laakiin qatartan halista badan ayaa waxay sababi kartaa in gabadhaasi nolosheedii ay la wadaagtid haddaba daawadayaal mar labaad waxaan idin leenahay fariintan waa in aad share gareedaan warbixintan waa in Soomaaliya idin la gaarsiiyo waa in qof kasta oo Soomaaliya iska xil qaado waa in qof kasta oo Soomaaliya haddii aadan xataa warbixinteeda share gareyn waa inaad gabdhaha la wadaagtaa aad wacdaa siyaalo kale aad mataqaana baraha bulshada wax ugu soo daabacdeen arrintan ayaana qatarteeda wadato
waxaana bahda haldoor had iyo jeer u taagan tahay in waxyaalaha noocan oo kale ah idin la wadaagno maxaa yeelay gabdhaheenu waxay u baahan yihiin in la garab istaago dadkeenu wuxuu u baahan yahay in la garab istaago qof walba waa in dhinaceeda ka qabataa had iyo jeerna waxaa laga rabaa inaad dadka Soomaaliyeed u soo bandhigtid xoga iyo macluumaad iyaga faa'iido u leh wixii khatar ahna aad ka hor istaagi karto haddaba daawaday halka aad warbixintan kala socotid waa channelka Haldoor Media haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeeyay channelkeena fadlan subscribe saar si ayna kugu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino